هيكل محمد موسى وأذيك كسوة كيشي أو وحن كن نكاحيي ماريا أبشر محمد حسن أو مهر كذا أو ياهي بقول قران أو ذهب بنتي أناء أو سنغافوري هذا أو وكيشي إن كن نكاحيي هيكل محمد موسى هيكل أذيك كوكيل نكاحاس مهر كاس ما هو أقبشي وأنا أقبل بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال مروين مرتبط كسوق الجشة حفلة قيمها بدن دمان كان أن أودا جوجنو أو إن مركزي مرخاتي ما أنتل كان أن كان نخنو قبطان يقولي كان قرطة بدن ما أنتل كان أن كل سينو وهيكل محمد يسدو كله ماريا أبشر بقرطة استيلكا وحنا ودا جوجنا دمان تنا وحيد هاي إن مركان أن كغير قادنا فرحة داسي يقولي كان هل كان لقولي سيو waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan halkan ka soo qayb gashay odayaasha dhalinyarada iyo sidoo kale gabdhaha imaamooyinka halka markaasi maanta waqtigooda u soo horay si ay qayb ugu noqdaan xafladan markaasi inagu weyn waa guri aan wada sugaynay muddo in markaasi uu dhismo waana mid ka mid ah marka la fiiriyo waxa ugu wacan uguna wanaagsan in qofka muslimka in uu ka soo qayb galo madal noocan oo kala oo lagu dhisayo guri xalaal ah markale waad ku maasantiin qaabka aad halkan ugu soo qabgasheen iyo waqtiga aad soo horteen waxaan ka cudur daarnaynaa daqiiqadaha yari oo markaasi xafladda ay dib inoogu dhacday iyadoo aan markale idin leenahay waad ku maasantiin xafladda ayaan gudagali doonaa markan waxaan ku daafura doonaa aayadaha qur-aanka kariimka qolka eebe waxaana inoo daafuraya macalin xuseen iidow xasan marka meeshan waxaan u soo istaagay annaga waa iskinbaraya horta marka hore beesha waxaanu nahay dir irid baanu nahay dirna waa ka nahay waxaanu ka nahay niman la yidhaha isaaq reer sheekh isaaq habar awal baanu ka nahay ciise muusaanu ka nahay beeshana ma soo kala harin maanta udbaheediiyo dhegaheeda macaa suldaankii beesha ayaanu hogaaminaya cuqaashii dhalinyaradii aqoon-yahankii giddi meeshaan ku dhannahay gabadhaasaan mataqaanaa si aan u karaamayno iyo reerkaan aanu gabadha ka doonayno waxba lamaanaan soo harin meeshaan isugu nimid sidaa awgeed baan waxaan uga codsanaynaa beesha martida loo yahay inantu ka dhalatay wiilka waxaa la yidhaahdaa haykal maxamed muuse gabadha la yidhaahdo maariya abshir maxamed ayaanu idinka fadhin aadna siisaan nagu caaqibaysaan noo guurisaan إن شاء الله تعالى وركان أنت سكوسوا قبل كبيه. وعن قدر ساعة أنا قبلها مركي نجار بورسدو. لا تقواك أبجال كواك النوع. مركي قبله نك نيس قبطان كسوت تقول يقول غير كذا تماضو. جنبنا أوتورنا أنا جا. جنبك أسكو بدي صار هنا. جنبك تدي بوحسه. نا إذا ملي يقول قال ما لقنا كتير لكن هذا جنبك شيء أكبر أنا هذا.
وريا ماشي فريق صدق صدق كم قطع إياه بصور دور أنا يقول عارنا هنا قبل سنوات هنا يا أدنى قصيد درسه dadka caafada anaga gabdhaha ma aadno gabdhaha wax laga ma doonto sida badan culumaan oo hormartay khayr Allah siiyo marka laakiin waxa lagu qabaa walax oo la yiraahdo aroos iyo wax la isku kaalmeeyo habarteer hadda hargeysa laga tuuro gabadhii aroos iyo wixii taa lagu qabo warba iyada aan dhaqaaleysnaato khayr Allah siiyo wala maasantii Rahmaanir Rahiim waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dadkiina halkan dhamaantiin fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan idinka mahad celinaynaa xafladan quruxda badan ee aad nagu soo dhaweyseen noo siiseen alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan idinka mahad celinaynaa waxa la yiri dad labada reer ee labada jaanibi dad hadda u koow tahay inaynu isu soo doonano maaha si fiican baan u naqaanaa idinkuna si fiican baan noo taqaanayna waxaanu nahayna hore loo sheegay oo caaqilkii ayaa hore u sheegay laakiin inaan hadal badan iraahdo umaanu istaagin inaan idin mahad celiyaan halkan u soo istaagay waxaan leeyahay zamankii asxaabta ayaa waxa la yiri ninba gabadh loo jiriyay oo gabadhii loo doonay gabadhii wuxuu yiri gabadha intaydaan igu darin waxaan doonayaa gabadha horta inaan arko waad arki kartaa baa la yiri gabadhii baa loo keeno waatan baa la yiri gabadha lagu daraya wuxuu yiri noo faqdaaya labadayada labadoodii markay goor isbixi waxaan ku weydiinayaa ma waxaad doonaysaa inaynu isku aakhirasano oo adna aad duugto anna aan ku duugo kolba qofkeeni hormara mise waxaad doonaysaa 2 bilood ama 3 bilood kadib inaan isfurno markaasay tiraahday laba la isku misaala maaha waxaan doonayaa hadii ilaahay yiraahdo inaan ubad kala dhalo oo hadaad iga horeysana aad ku duugo hadaan anigu aan ka horeeyana adiga idugto hadaba midiyal buu yiri sidaas isla ku dhici kartaan ku sheegaya midiyal waxaad yeeshaa hadaad aragto anigu xanaaqsan hadaad aragto hayga daba xanaaqin anna hadaan arko adigoo xanaaqsan ka daba xanaaqi maayo oo laba xanaaqsan isma daweyso waxa iimaanaya dhib baa iimaanaya marka waxaan dhihi lahaa mid wiilka iyo gabadha waxa la yiri ninkii gabadh reer soo koriyay oo quruxda aad yaabto oo lagu soo juhdi la geliyay ninkii intuu yiri hal la siiyo nin ka geesisan ma jiraan cidda gabadha dhashay gabadhay ku soo tiiriye tacabeeleen soo koriyeen cilmi bareen oo inta loo yimi nin u yimi yiraahda gabadhiinaan idinka doonaynaa ayaguna siiya cid ka deeqsisani ma jirto waayo gabadh ay intaa ku soo tabcayeen soo koriyeen soo kabiyeen ku soo tabceen wax bareen ayaa nin inta u yimaada ay siinayaan marka cid ka deeqsisani ma jirtaa leeyahay gabadhii lagu soo tabcay juhdiga la geliyay cidii bixisay waxaan leeyahay dardaaran yar baan u sheegayaa labadii jaanib wiilka iyo gabadha horta waxaan waa u ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii isku waara Allah idinka dhigo kuwa khayr qabo waxa halkan aan u fadhinaa waxa weeye khayr baynu u fadhinaa waxaynu u fadhinaa guri islaam aynu dhisaynaa meel la isugu yimaado meeshii u khayr badneed maadaama qoys islaameed la dhisayo waxaan leeyahay kuwii isku waara ubad khayr qaba Allah kala siiyo Allah ka dhigo waxaan wiilka ku leeyahay wiilow
gabadha reer baadhalo ku soo tabcay oo soo koriyo soo kabiyey gabadha waa loo sabraa waxaan leeyahay u sabir gabadha iyana waxaan leeyahay gabadhana waxaan leeyahay sidaa si leeg baan leeyahay waxa weeyaan insha Allah Allah idinka dhigo kuwa isku waara Allah idinka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا وحمد إسكال إلهي نقصه كل مية حفلة وروح بضانه إن نريد عقد الشرع وافقسا وإلهي راضي وكيهي أن أريد نهدو إلهي لهذا بلشد ماشي الدكتور لن ما دام النكاح وكدعايو جمع أما اجتماعي وكدعايو دمان ووضع مرقاتي أنا مرقاتي تقولي وهل إيا اللبا إيا ما دام ضدكو أي بديهين وإنا أغاتين إنا دمانتين عقد كعتان كيسا المرقاتي كتهين قبدا وحال هذا ماريو أبشر محمد حسن ويلكنا وحال هذا هيكل محمد موسى ويلك هذا لما جوجو وحا وكيل ولا الكيس آدم وكيل سيدا سأغانيسين قبدا أبه هذا أنا وكيل شيء إن عقد كردو مهر كيدنا وبقول قران وذهب وفينتونا نوع السنكابوري جنا سيدا سأغانيسين عقد كردينا أنت أصبح إن المرغاتي كأهاتان وأجوكتان ما دام دليرة إيو نقوش إيو أخيار دمان أي ماشي جوغان ضد هدنا دمان وذا مسلمين أهو أهل التقوى أدوذتهين ضد وحاتهين أصوبا إن قف كستو إذن كمدا بلغو قرو إن نقطو مرقاتي سيدا درت هذا مركا دمانتين وحاتهين مرقاتيالو سيدا سوغادا عقد كان أنيغا ريدي دونو مقعي الإرادة عبد الكريم شيخ عبد الله محمود حسن عقد كريد دونه الله يوكي شيء وانا قد قلنا هدو إلهي لهذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغل للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة وفساد عريض النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين وحسن دون عدو الله حصين وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين وهو سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وشعائر الإسلام وجنة من الفحشاء وإذن وأدب من رب السماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نصيبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المعبود الله
المصطفى رسول الله وغير ما عمل به كتاب الله هو الهادي المفرق بين الحلال والحرام أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي ماريا أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنكبورية حالا في ذمة موكلك فلها المطالبة من موكلك متى شاءت قبلت له نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مريم أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنكبورية حالا في ذمة موكلك فلها المطالبة من موكلك متى شاءت قبلت نكاحها له وتزويجها بالمهر المذكور هيكل محمد موسى وأذيك كسو وكيشي أن وحن كن نكاحيي ماريا أبشر محمد حسن أو مهر كيدا أو ياهي 100 جرام أو ذهب بنت أناء أو سنغابوري هذا أو وكيشي إن كن نكاحيي هيكل محمد موسى هيكل أذيك كوكيل نكاحاس مهركاس ما هو أقبشي وأنا أقبله نكاحاس مهركاس وهو أقبله وأنا أقبله نكاحاس مهركاس وهو أقبله نكاحاس مهركاس وأنا أقبله هيكل محمد موسى أو أذيك كسو وكيشي أو أن كن نكاحيي ماريا أبشر محمد حسن أو هذا أو كسو وكيشي إن أن كن نكاحيي هيكل مهر كذا أو 100 جرام أو ذهب أو بنت أناء سنغابور أن كل زوجين كل نكاحيي هيكل مهركاس نكاحاس ما هو أقبل شيء مهركاس نكاحاس وهو أقبل بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير